arintaas hadii ay sii socoto kalsoonida ayaa idin kala laaban doonaa sidoo kale kala laabanina waxaan rabaa fanaanka yarta ma lagu hayaa inaa wax yar ka dhaho fanaankaas waxaa la ii sheegay in maalinlahaas fanaaniinta waaweyn markay imaanayeen sida xasan aadan samatar iyo axmed cali cigaal in lagu qufulay guri fanaankaas runtii waxa waaye dhibaato ku haya fanka Soomaaliyeed marka waxaan leenahay fanaankaas fanaan horta ma dhigi karno wiilkii yar oo afka iga soo dafay fanaan ma dhigi karno fanaan hal funaanad wata macnaha hal funaanad waa hal funaanad aan iska bedeleen ma dhigi karno fanaan sahil oo kale sida dhamal oo kale wax baaraya ninka taageero Muqdisho ka abuurtay fanaan ma ahan ninkaas yarta ma loo haya ninka qaaday fanaan ma ahan واتاي كل وعنا ونكسن داود المال والبجوكتان يسوى بالنا داوانيسان halkan waa hoyga qancinta bulshada ee Ital Media hadda ku cusubtay saaxiib subscribe iska kasbay iska like garay share iyo comment ha ka ilmaamin ومركله iyo muuqaal kale oo ka duwan muuqaaladii hore garabkii ka soo muuqday إسماعيل أحمد محمد إسماعيل تركي قد قرأنا إنه يحيي متكمل ده ورياش كول قله عاصمة الدلكة مقدشة ونشاط يوربهن هذا وقف قدر عاصمة ده إسماعيل سودبا وكسودبا صاحبة إيطال أدبا ما سنتهاي الذكرين عيسى عداوي أديك إيو أصحاب إيطال ميديا وحندين لا يحيي أدبا ما سنتين ومركي وجوه الرئيسي أو عن كسر مقدو aaladan caan ka baxday YouTube ha Ital Media ina si qaas ah barnaamijkan ay ugu casuumaan sharaf iyo karaamo iyo cizi ay ita si fiican soo Ismaaciil sida mawduuca ku xusan ba saaxiibada ay oran karaan ba ay ka hadal karaan ay tahayna arinta fanka Soomaaliyeed haysata sumcad darida oo ku aadan in fanaaniin ay ku heesaan هيسو لوغو تلقلين حلي مرحلة سي جوغان فنانين باركيسا مقدشو مسرحية أروس أو كلا لجوغا وحا لوغو تلقل إلا شيدو إلانتي وعنيد وقتي مددي محا كورا كرتا هيستي كفسيقا ولايقا مسرحة أروس آديات الذكرين هاد باو ما سنتها مركلة فانكا سومالي دحو أباهن حلقان تفترت سيفعان إن لا تفترو aad loo tafatiro ayuu u baahan yahay waxa dhacday marrabo in fanaanadaas magaceeda hadda aan soo xigto sababtoo ah barta social media ku jirta waa wax walba meesha laga arki karaa si fiican fanaanad kamid ah fanaaniinta ku nool Muqdisho ayaa toddobaadkan la soo dhaafay waxa ay sameysay iyadoo waliba ku sugan goob aroos ah si fiican inay ka qaaday heestii kufsiga ونصيب درو أو فنك الصوماليات وسهيتي وحلو جوجا مناسبة وليبا وفرحت وفرحت أروس وحلو قلت لك علي هي سكر الدون إن بدن هي سكر الدون أي الله قاعد كرا قبته سيدا هي سا أروسك هي سا جعلك وحوا مرد بيسو هي جعل حتى دي الله قاعد إنك استو مهمة تهاي in la qaado oo kaliya hees ku haboon arooska maalintaas ku haboon ka waran hadii aad qaado heestii kufsiga wallahi goob markaas isbedeli karta dadka cashuurta aad iyo aad uga xumaaday fanaanadaas waxa la leeyahay fanaaniinta Soomaalida haska ilaaliyaan marka ay joogan xafladaha sida qaaska aroosyada inay heesaha ku haboon ay meeshaas ka qaadaan si fiican marka sidaas kula talin lahaa marka laga soo tago gabadhii toddobaadka gudaheeda masraxa ka sameysay arin la yaab leh waxaa jiro fanaaniin kale oo gobolada Soomaaliya ku nool oo iyaga ba sameeyay arin ka duwan kuwa ay gabadha sameynayso waxa arkaysa fanaan oo heesaya goobta uu joogay goob aroos ah heesta uu qaadayna ay hees loogu talagalay goob ka duwan goob aroos aadiyad marka كلي مقدشة ليه ما إنه إن أنت مقدشة كقاعد يستي كوفسي كلي كم إيكو وقولوا الصومالي أنا كجرت على تاس مركب فنكي صوماليات من هرجيسة مقدشة قولوا صومالية
waa fan saameyn weyn ku yeelanayaan fanaaniinta iminka soo baxay aad iyo aad waxaan arkayay masrax la joogo goob laga qaaday hees cunsuliid ku ah marka maxaad oran kartaa ugu dambeyntii fanaaniintaas kaliya waxaan leeyahay fanaaniintaas hadda daawanaya inaysan qaadin heesaha sida heesii hadda ka dhawaajinay heesaha kufsiga waxay leeyihiin marxalad iyo sidoo kale looga hadlo macna Cabdiraxmaan Xasan nimca hilaac hees kufsi uu qaaday laakiin wuxuu qaaday xilli loo baahan yahay kuna ma qaaday aroosa joogta hees kufsiga qaaday fanaanow war ka xishoonay waxaan nahay dadka ku daawado wallahi arintaas hadii ay sii socoto kalsoonida ayaa idin kala laaban doonaa sidoo kale waxaan rabaa fanaanka yarta ma lagu haayaa inaa wax yar ka dhaho fanaankaas waxaa la ii sheegay in maalinlahaas fanaaniinta waaweyn markay imaanayeen sida xasan aadan samatar iyo axmed cali cigaal in lagu qufulay guri fanaankaas runtii waxaa waaye dhibaato ku hayaa fanka Soomaaliyeed marka waxaan leenahay fanaankaas fanaan horta ma dhigi karno wiilkiyaro afka iga soo dafay fanaan ma dhigi karno fanaan hal funaanad wata macnaha hal funaanad waa hal funaanad aan iska bedeleen ma dhigi karno fanaan sahil oo kale sida dhamal oo kale wax xambaaraya ninka taageero muqdisho ka awartay fanaan ma ahan ninkaas yarta ma loo haaya ninka qaada fanaan ma ahan artiis cajiib badan waa ma santa itaal media iyo idinka dhamaan shaqaalaha iyo maamulka guud ahaan waa maasantihiin runtii muuqaalkan oo dad badan laga yaabaa inay maaragtay dhibaato iyo wax u arkaan laakiin waa la talin xaqiiqda jirto waay sababtoo ah ninka maanta wax ku sheego waa qof ku jecel waxaa leeyahay fanaaniinta Soomaaliyeed heesahaas ka tafatiraan markay ka qaadeen goobaha aroosaha okay aad baasanta Ismaaciil Turki uu ahaa oo qayb ka ahaa barnaamijkan oo uga hadlaynay marxaladda fanaaniinta masraxyada kala duwan ku qaadaya waxaad arkaysaa masrax la taagan yahay masrax wadani loogu talgalay waxa laga qaaday hees jecel Xaliimo Guwaade ku dhacday habeenkii doorashadii madaxweynaha Puntland Saciid Dani waxa ku dhacday in hees jecel meesh ka qaaday goobtan waxa fariyo farmaajo iyo madax kale oo ka duwan madaxyada wadanka hore u soo hogaamiyay marka fanaanadan kufsiga aad ma garanaysaan oo taqaanaan marka guud ahaan barnaamijka halkaas ku soo gabagabeynaya aniga Ismaaciil baan ahayn nabadgelyo